السلام عليكم وفيديو كلو عصب يا شاهد بيساني dad badan oo waxaa jira haddii aanan loo masiirin moodaya inaana la jecleen waxaa kaloo jira dad badan oo qofka ku kalifayo inuu maseer qaado videogan ayaan ku qaabaan dhigi doonaa la socod wanaagsan waxaan kula wadaagayaa dhibaatada uu maseerku leeyahay wixii fikir aad adigu haysidne commentiga waa nagula wadaagi kartaa maseerku laba ayuu u qaybsamaa mid qof nimco uu haysto oo qofka kale uga masiiriyo iyo maseer dhex mara laba qof xiriir ka dhaxeeya markuu qof kale uga maseero nimcadiisa nimco uu haysto ama ka muuqato waxa ku filan kaliya inuu qofkan masiiriya xasuusto nimcadan aad qofkan uga masiiraysid haddaad adigu haysan lahayd ma jeclaan lahayd in lagaaga maseero ma ka xumaa lahayd kan ugu badan ee dadku ku mashquulaan ee xiriiradu ku burburo waa maseer ka dhex mara laba qof oo xiriir ka dhaxeeya haddaad xiriir ku jirtid oo aad shaki badan tahay ama maseer dareemaysid waxaan ku xasuusinayaa laba qof oo walba xiriir ka dhaxeeya wax ay isku fahmi waayaan markay wax isku fahmi waayaan waa marka uu shakiga bilaabanayo marka labada qof ee xiriirka arrin isku fahmi waayaan qof baa waxa niyadiisa soo galaysa qofkaani ama weyda waayo isqabqabasho ayaa bilaabatay niyadiisa marka ay soo gasho qofkaani ama weyda waxa ku xigsanaysa qofka inuu shakiyo shaki baa ku imaanaya shakigaas markuu yimaado qofku maskaxda ayuu ka mashquulayaa su'aalo ayuu isweydiinayaa su'aalahaas oo ah qofkii uu xiriirka la lahaa inuu is yiraahdo halkee buu ku maqan yahay halkee bay jirtaa maxay qabanaysaa muxuu qabanayaa maskaxdaadii ama maskaxdiisii ayuu mashquulinayaa qofkii laga yaabay waxa uu maskaxdiisa ku mashquulinaya inay yihiin waxyaabo aaban jirinba waxaan ku xasuusinayaa maskaxdaada aad u mashquulisid waxaad ku weynaysaa unugyo aad muhiim u ah jirkaaga hal talo ayaan ku siinayaa oo ku saabsan maseerka waxaan ku dhihi lahaa inta aad ka baqaysid qof bila aadana inaad weydid haweyn naftaada iyo maskaxdaada waayo qofkaan aad ku mashquulaysid adigu maada abuurin qofkaanu qofka xiriirka kala dhaxeeyo uu ku mashquulayo ma aha qof uu abuuray ama uu leeyahay waxaad leedahay baa loo maseeraa waxa aad adigu haysatid oo aad hanti ahaan u leedahay baa markii ay kaa lumaan ama ay dhibaato kaa soo gaarto baa loo murugoodaa laga fikiraa qofkaani waxa idinka dhaxeeyo waa xiriirkaas wuu dheeraa karaa wuu gaabnaa karaa hadaf ayaad leedihiin hadafkiina haddaad isku fahantaan guushiina waa gaarteen laakiin inta xiriirkaasi uu socdo haddii aad isfahmi weysaan maaha maskaxdan yariistaa ee ku saaran inaad ku mashquulisid waxaan meesha aalin waxaa laga yaabaa labada qof ee xiriirka ka dhaxeeya kan hadduu qofkan u maseero qofka kale ugu maseerayo waa qof aan waxba dheereen waa qof bila aadana qofkaani qofka kale wuxuu uu kusoo jiitay waad ku dadaali kartaa haddii aad qofkan ka samri karin aadan ka maarmi karin inaad kusoo jiidatid haddii aad soo jiida karinne oo aad naftaada u mashquulisay maskaxdaada u mashquulisay waxaan ku dhihi lahaa maskaxdaada hawaayin naftaada hawaayin intaad qof is leedahay bila aadana hawaayin ha noqon qof maseera hana noqon qof jecel in loo maseero waayo waxa aad mashquulinaysid waa maskax bila aadan inaad jeclaatid in lagu maseero waa qof inaad ku kaliftid inuu xanuunsado waayo qofkaani marka uu kuu maseerayo maskaxdiisu aad buu u shaqaynaysaa videogan haddaa ka heshay like saar commentiga wixii fikirkaaga way igula wadaagi kartaa channelkayga haddaa ku cusub tahay waxaan si naxariis la kaaga codsanayaa inaad subscribe ii saartid videoyo badan oo nolosha ku saabsan ama xiriir ha noqoto ama caafimaadka oo sportiga fitnesska ha noqoto waan kula wadaagi doonaa waa saaxiibka shaahid visaani nabadgelyo